السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا ونكسن داوديال meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay geyga Soomaaliya qodobadaan idin wadaagi doona waxa kamid ah dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhanka ciidanka ah oo laga soo warinayo deegaano fara badan oo kamid ah gobolka Sanaag isku dhac ciidanka Soomaaliland iyo kuwa waqooyi bari ah ayaa laga cabsi qabaa faahfaahinta wararkii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagayaa waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo amar ku bixiyay in la qarameeyo maleeshiya beelada u dagaalama Puntland oo ku sugan magaalada Badhan ciidankaasi ma waxa loo adeegsan doonaa burburinta maamulka waqooyi bari xoga dhameystiran ayaan idin kaga hayaa waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo abaalmarinaya ciidamada dadka deegaanka ee beesha Wacaysle kuwaas oo shalay cashir lama ilaawaan u dhigay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo kordha ayaan saaxiib yaal idin faahfaahin doonaa soo dhawaada haddii tahay markii kugu horeysay nagu soo biir qodobkeena ugu horeeya ayaan daawadayaal ku bilaabayaa wararka xilligan laga helayo meelo fara badan oo kamid ah gobolka Sanaag ayaa waxay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhanka ciidanka ah laga dareemayo meelo fara badan oo kamid ah gobolka Sanaag halkaas oo laga cabsi qabo inay isku dhacaan ciidanka waqooyi bari iyo kuwa Soomaaliland 48 saac la soo dhaafay dhaqdhaqaaqan waxa si weyn looga dareemay koonfurta iyo waqooyiga magaalada Cirigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxaana laga cabsi qabaaba inay dhinacyadu isku dhacaan oo xabadu ay mar walba bilaabato saraakiil ka tirsan maamulka waqooyi bari qaarkood waan goordhow la hadlay si aan wax uga weydiiyo arrimahan waxay sheegeen in ay ka warqabaan dhaqdhaqaaq walba oo ka imaanaya dhinaca Soomaaliland isla markaana heegan ay galiyeen ciidankooda saraakiisha aan la hadlay sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen in ay faahfaahinta macluumaadkan la wadaageen garaadada maamulka waqooyi bari garaadaduna ay sheegeen inay isdifaacaan haddii duulaan lagu soo qaado laakiin iyagu aysan xabadda bilaabin warkan sidoo kale wuxuu ku soo aadayaa iyada oo toddobaadkii la soo dhaafay duleedka magaalada Cirigaabo ee xarunta gobolka Sanaag si weyn looga dareemay dhaqdhaqaaq xoog leh oo ay wadaan ciidanka Soomaaliland kuwaas oo la sheegay in xataa gaadiid dagaal iyo askar hubeysan lagu biiriyay ciidankii hore halkaas u joogay tan oo ay fafaalo ka muujinaysa ama ka bixinaysa sida Soomaaliland xilligan ay ugu diyaar garowday inay duulaan weyn ku qaado magaalooyinka ay gacanta ku hayaan maamulka waqooyi bari saraakiisha qaarkood oo aan la hadlay si wax uga weydiino arrimaha la xiriira dagaaladan waxay sheegeen in aysan iyagu xilligan diyaar u ahayn inay duulaan ku qaadaan maamulka Soomaaliland laakiin haddii duulaan iyaga lagu soo qaado aysan gacmaha laaban doonin balse ay jawaabi doonaan amarkan sidoo kale la siiyay ciidanka maamulka waqooyi bari ee ah inay istifaacaan haddii ay culays dareemaan waa mid walaaciisa leh sababtoo ah askari la siiyay amar oo la yiri haddii aad dhawaqa xabadda maqashid waa inay istifaacdaa muxuu samayn karaa ayuu yiri oday kamid ah odayaasha dhaqanka ee ku jiray waanta la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka Soomaaliland iyo waqooyi bari mid kamid ah siyaasiyiinta u dhaqdhaqaaqa maamulka waqooyi bari ayaa xalay muuqaal kooban oo bartiisa Facebook uu soo galiyay wuxuu ku cadeeyay sida ay xilligan dhinacyadu ugu heelan yihiin inay weeraraan maamulka waqooyi bari maamulka waqooyi bari wuxuu tilmaamay tan haddii ay ku noqoto filanwaa oo weerar lagu soo qaado inaysan waxba ka qaban karin laakiin waa inay hadda istifaacaan oo ay xabad ku ridaan cid walba iyagoo dhankooda xabad ku soo rida waana inay mar walba taxadar dheeraada muujiyaan oo ay iska celiyaan haddii ay culays dareemaan ayuu yiri sargaal saro ka tirsan maamulka waqooyi bari oo aan qadka telefoonka kula hadlay khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin maamulka waqooyi bari xilligan uu ogsoon yahay in duulaan weyn uu ku soo socdo wayna ogsoon yihiin haddii ay xabaddu faraha ka baxdo inaysan waxba qaban karin wayse ogsoon yihiin in Soomaaliland iyaga ay ku soo noqon tahay taas oo keentay in maanta heegan buuxa la geliyo dhammaan ciidanka maamulka waqooyi bari haddaba xogaha iyo macluumaadka hadda soo baxaya ayaa waxay leeyihiin 48 saac la soo dhaafay xataa garaadada waqooyi bari waxay isku raaceen in ciidanka jiidaha Sanaag ku sugan ciidamo kale lagu kordhiyo taas oo loo arkay xeeladaysi military oo Soomaaliland ay ku sameynayso ciidanka waqooyi bari oo ah haddii dhinac lagaga yimaado inay dhinaca kale iska difaacaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhankiisa la sheegay inuu dhinaca Soomaaliland ku garabsiinayo duulaan weyn oo lagu qaado maamulkan curdunka ah iyada oo Danina la sheegay
in uu dhowr jeer ka shaqeeyey arrimo dhowr ah oo masiirka Puntland iyo maamulka waqooyi bari wuxuu dhimaya. Tusaale ahaan waxaan ogaanay in dhowrkii saac ee lasoo dhaafay ay jireen aragtiyo kala duwan oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan kuwaas oo ku saabsan in maamulka waqooyi bari dhinac walba laga weeraro oo Puntland ay qayb ka noqoto, taas oo loo arkay inay tahay falsafadii ugu dambeysay oo Dani uu doonayo inuu madaxa isku geliyo beelaha harti. xogaha macluumaadkan helayna ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay aagaasi ay ahaayeen kuwo lama filaan ah marka laga hadlayo sida Puntland iyo Somaliland ay ugu heelan yihiin inay burburiyaan oo ay markaasi minjaha u xaabiyaan maamulkan curdunka ah ee saldhigiisu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. saaxiibayaal wixii ku soo kordha haddii Allah uu dalo raali ka noqdo waxaan idin kula wadaagi doonaa wararkeena dambe kolkana. magaalada Badhan oo ka tirsan gobolka Sanaag, Siciid Cabdullaahi Dani halkaas waxa uu ka bilaabay sheekooyin yaab leh. sheekooyinka la yaabka leh oo Siciid Cabdullaahi Dani uu halkaas ka bilaabay ayaa ah in uu qarameeyay oo ciidanka Puntland uu doonayo inuu ku daro maleeshiya beeleed iyaga u dagaalami jiray. calaashan waa maleeshiyaadkii beesha warsangeli qaarkood oo la sheegay in la khiyaamay oo la yiri waxaa la idin qorayaa mushaaraad. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka magaalada Badhan oo dhanka dowlad goboleedka waqooyi bari ka soo jeeda waxay tilmaameen in warkan ay u gudbiyeen garaadada iyo saraakiisha ka sarreysa, waxaana Siciid Cabdullaahi Dani uu doonayaa maleeshiyaadka uu halkaasi ka qoro marka uu hubka gacanta u geliyo inuu dib ugu weeraro maamulka waqooyi bari, taas oo la sheegay in maamulka waqooyi bari iyana ay ka warqabaan. waa falsafadii ugu dambeysay oo Dani uu doonayo inuu ku kala jabiyo dadka deegaanka maamulka waqooyi bari, laakiin xogahan helayno ayaa waxay tilmaamaysaa in tan aysan ahayn wax macquul ah oo ay la socdaan garaadadu waxyaabaha uu sameynayo Siciid Cabdullaahi Dani isla markaana laga hortagi doono. xogaha iyo macluumaadka aan helayno ayaa waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac ee lasoo dhaafay maamulka waqooyi bari ay markaasi dhabarka ka jabin doonaan cid walba oo markaasi doonaysa inay burburiso dhismaha maamulka waqooyi bari. wararka iyo macluumaadku waxay tilmaamayaan in maamulka waqooyi bari uu xilligan laftirkiisu u heelan yahay sidii uu iskaga difaaci lahaa haddii maleeshiyaad loo adeegsado ama haddii ivanba loo adeegsado waxyaabo kale. Siciid Cabdullaahi Dani waxaa la sheegay inuusan garanayn sababta ugu weyn oo maamulka uu weerarayo, laakiin hadda taatikooyinka uu isticmaalayo Siciid Cabdullaahi Dani ayaaba ah kuwa la yaab leh, sida inuu doonayo inuu madaxa isku geliyo maamulka iyo dadka deegaanka. wuxuuse sidaas la mid abaabulayaa maleeshiya beeleed aan la aqoon haybtooda kuwaasoo raba inay burburiyaan dhismaha maamulkan curdunka ah ee waqooyi bari la yiraahdo. falsafada Siciid Cabdullaahi Dani uu adeegsaday tiro dhowr jeera waa kuwa la yaab leh, laakiin hadda dhacdooyinka la helayo ayaa wax walba waxa ay ififaalo ka bixinayaan sida Siciid Cabdullaahi Dani uu xilligan ugu heelan yahay burburinta iyo kala jabinta maamulka waqooyi bari, tan oo loo arkay inay yihiin in ciidanka maamulka waqooyi bari iyo maleeshiyad hubeysan madaxa la isku geliyo markii ciidamadaasi mashquulaana dhinaca kale markaasi la dhabar jabiyo cid walba oo ka hor imaanaysa maamulka waqooyi bari, saasna ay wax ku dhacaan. 48 saac ee lasoo dhaafay macluumaadyo aan helnay ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in Siciid Cabdullaahi Dani ujeedooyin kala duwan uu ka leeyahay in uu maleeshiya beeleed ku abaabulo maamulka waqooyi bari, iyada oo hadda maleeshiyaadka la qoray loo dhammaystiray wax walba oo ku aadan wax walbay u baahnaayeen, taas oo loo arkay inay tahay waxa ugu weyn oo Siciid Cabdullaahi Dani uu doonayo inuu ku kala dhabar jabiyo dadka deegaanka maamulka waqooyi bari. xogahan helayna ayaa waxay tilmaamayaan in dhacdooyinkan ay noqon doonaan kuwo naadir ah haddii Siciid Cabdullaahi Dani uu markaasi wax ka qaban waayo ama uu joojin waayaba aan dhahe maleeshiya beeleedka tirabeelka ah ee uu abaabulayo, kuwaasoo la sheegay in dhowrkii saac ee lasoo dhaafay xataa dhaqdhaqaaq ciidan oo xoogan ay ka bilaabeen meelo fara badan oo ka mid ah gobolka Sanaag. waxay ku soo kordhay saaxiibayaal wararkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa. markana madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la soo warinayaa inuu telefoonka kula hadlay afartii sargaal ee hogaaminaysay ciidamadii macawisleeda beesha wacaysle ee shalay cashirka lama ilaawaanka u dhigay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab dagaalkii ka dhacay Aldheer. xogahan helayna ayaa waxay tilmaamayaan dagaalkii halkaasi ka dhacay inuu ahaa mid cajiib ah
oo lagu dilay lagu burburiyey laguna bartilmaamaysaday maleeshiyaad fara badan oo ka mid ah kooxda al-shabaab xogtaan helayna hadda waxay tilmaamaysaa in xogaha iyo macluumaadku ay intaa ku darayaan in marba markaa ka dambaysa ay soo baxayaan ififaallo muujinaya sida Siciid Cabdullaahi waa sida aan dhahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u doonayo in uu abaalmariyo cid walba oo cashir u dhigta kooxda shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay inuu abaalmarin lacageed oo fara badan siin doono saraakiisha iyo ciidamada saraakiisha la dilacsiin doono ciidamadana darajooyin loogu dari doono tan oo loo arkay inay tahay ciidamada dhiirigelin la doonayo in markaasi ciidanka lagu dhiirigeliyo wixii shalay ka dhacay galgaduud waxay ahaayeen wax walba oo qof walba uu la yaabay sida meedadka al-shabaab wadooyinka loogu jiiday iyo sida loo burburiyey goobo fara badan oo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay qaraxyo ka soo buuxiyeen waxaase sidaas si lamid ah khubarada amnigu ay aaminsan yihiin wixii ka dhacay ceeldheere inay ahaayeen wax la yaab leh oo cashir lama ilaawaan ahna loogu dhigay maleeshiyaadka firxadka ah ee kooxda shabaab kuwaasoo lagu jabiyey dagaaladii halkaasi ka dhacay si walba ha ahaatee dadka arrimahan la socda waxay leeyihiin tani waxay ahayd farsamadii ugu dambeysay oo Siciid Cabdullaahi Dani uu doonayo waa aan dhahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo inuu markaasi ku burburiyo cid walba oo ka hortimaada danihiisa iyadoo abaalmarin lacageed darajooyin iyo sidoo kale weliba mushaar kordhin loo samayn doono ciidamadii geesiyaasha ahaa ee burburiyey maleeshiyaadkii kooxda shabaab ee weerarka soo qaaday kuwaasoo la sheegay in qaar la dilay qaar la dhaawacay qaarna laga dhigay wax baxsaday kuwaasoo markii dambena muuqaalo lasoo bandhigay ay muujinayaan sida loo burburiyey goobihii keedka u ahaa maleeshiyaadka kooxda al-shabaab guud ahaana wararkeena saaxiib bal waa naga intaa haddii tahay markii kugu horeysay nagu soo bir oo subscribe channelkan waa mahadsantihiin soo dhawaada saaxiibayaal